السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. saaxiibayaal soo dhawaada maanta waxaan idin wadaa farsamo yar oo aad ku kordhin karto xawaaraha taleefankaaga haddii uu kaa culus yahay taleefanka ama uu daahayo ama xawaarihiis uu hooseeyo adigoo wax software ama wax application aadan la soo degin qaabkee ayaad u kordhin lahayd xawaarahaaga. Isla socod wanaagsan. Ugu horreyn taleefankaaga qaybta setting-ka soo gal. Markaad qaybta setting-ka soo gasho waxaad imaanaysaa meesha ugu hooseyso ay ku qoran tahay developer option. waxaa laga yaabaa adiga inaysan ku furnin developer option. Waxaad tagaysaa si aad usoo furto developer options about phone, halkaas ayaad tagaysaa. Kadibna software information aad ku dhufanaysaa. Meel ay ku qoran tahay bill number, halkan ayaad 7 jeer ku dhufanaysaa. Aniga hadda wuxuu leeyahay hore ayuu kuugu furan, adigu kusoo furmi doonaa. Kadibna waxaad tagi doontaa developer option. Developer option markaad tagto hoos ayaa u daadegaysaa ilaa aad ka tagto meel ay ku qoran tahay window scales. waa kan window animation scales. halkan ayaad waxaad ka dhigaysaa 0.5 ayaad ka dhigaysaa. taleefanka waxaa laga yaabaa hal inuu yahay ama 2 ama maarata 5 inuu ku yahay. waxaad ka dhigaysaa 0.5 ayaad ka dhigaysaa. hadda anigu taleefankayga speedkiisa ama xawaarihiisu waa zaa'id. sida kuwa muuqataba. sidoo kale maarata haddii meeshan aan 10 ka dhigo xawaaraha taleefankayga wuu yaraa doonaa. fiiri saad u jeedo taleefanka wuxuu keenay culays xad dhaaf ah ayuu keenay. Sida awgeed marka halka waxaan ka dhiganaynaa 0.5 ayaad ka dhiganaysaa. 0.5 ayaad ka dhiganaysaa. wuu kordhayaa marka xawaaraha taleefankaaga. fadlan haddaad ku cusubtahay channelkana subscribe inoo saar. mahadsanid.